10,000 oo page views traffic ah iyo sidoo kale 15 article ee markaas niche-ka ama nooca uu rabo loo qoraayo hadii success uu rabo hadii uu motivation rabo hadii markaas yani sports uu rabo markaas nooca uu rabo. السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada janaalka Somali Tutorials fadlan janaalka hadii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar sidoo kalena muuqaalka inoo la garay hadii aad hore inoo joogtayna waxaan ku leeyahay mar labaad soo dhawow maanta muuqaalkeena waxaanu ku qaadan doonaa insha Allah sida loo iibsado web hosting cheap ah ama domain iyo hosting markaas yani quality high ah si aad u iibsato kadibna website-ka aad ugu xirato hadaba sida halkan oo u jeedo macaamiil kamid ah macaamiisheena wuxuu naga soo codsaday in markaas website aan u dhisno kadibna domain iyo hosting quality aan ugu xirno kabacdina insha Allah team quality aan siino hadaba sida u jeedo website-ka aynu dhisi doono yani sida website loo dhiso course ayaan ka soo diyaariyay dabcan waxa sameynaysaa YouTube-kan ayaa tagaysaa qaybta playlist-ga insha Allah blogger meesha ay ku qoran tahay ayaa taaban doontaa kadibna yani 12 party ilaa 10 party aan ka diyaariyay jirto website sida loo sameeyo blogger ah oo step by step ah meeshaas ayaa ka daawan doontaa dabcan website-ka waan soo sameeyay kaliya yani waa iska soo diiwaan galiyay hadda waxaan rabaa inaan domain hosting aan gado kadibna aan ku xiro insha Allah wax team kuma jiro wax boss kuma jiro nothing wax loo qabto malahan yani hadda shaqada bilaaw doonta insha Allah marka domain hosting aan gadno aan ku xirno kadib ayaa la hagaajin doonaa website markaas professional ah oo website-yada caalamka la tartama ayaa laga dhigi doonaa hadaba marka qof kasto oo anaga website aan u sameeyno wax uu xaq u leeyahay ama uu helayaa 10 feature dabcan 10 feature waa hosting hal sano ah domain hal sano ah premium team storage speed free cover and logo free article free traffic sidoo kale AdSense laga caawinayo sidoo kale features badan ee halkan lagu soo koobi karin sidoo kale lifetime caawinad aan dhamaanay support hadaba marka si aad u iibsato domain-kii hosting-ka waxaad u baahan tahay muuqaalka hadda aad daawanayso ama muuqaal kale oo markaas Somali Tutorials ee leedahay kaliya inaad tagto description-ka kadibna meeshan ayaan ku dhigay waxaan kugu qoray shirkadda domain-ka ka iibsaday linki qiimo dhimis balaaran wata dabcan linkigan wuxuu wataa 73% dabcan inaad ka faa'iideysto ayaan rajeynayaa hadii marka qofka linkigan uu ka iibsado oo website isaga uu sameeysta kadibna uu noo soo diro linkiga inuu ka iibsaday yani muuqaal uu ka soo duubo oo noo soo diro insha Allah qofkaas wuxuu nagu leeyahay 10,000 oo page views traffic ah iyo sidoo kale 15 article ee markaas niche-ka ama nooca uu rabo loo qoraayo hadii success uu rabo hadii uu motivation rabo hadii markaas yani sports uu rabo markaas nooca uu rabo dabcan hadii qofka markaas anaga oo nala soo xiriiro oo anaga aan u sameeynana website-ka in yani 10 feature aan hore kugu soo sheegay iyo 15 article iyo 10,000 oo page views asagana uu heli doono hadaba marka hadii aad doonayso website intaas oo dhan leh in lagu sameeyo kadibna aad la wareegto nala soo xiriir oo waxaad nagala soo xiriirtaa WhatsApp-keena description-ka saaran hadaba marka si muuqaalkeena aan u guda galno insha Allah waxaan sameyn doonaa dabcan waxaan sameynaynaa ugu horeyn muuqaalka aad daawanayso description-kiisa ayaa tagi doontaa kadib description-kiisa markaad tagto waxaad sameynaysaa meesha ay ku qoran tahay linkigan ayaa ku dhufo doontaa yani 73% ah dabcan linki marka ku soo dhifato wuxuu ku keenayaa dashboard-kan uu ku keenayaa dashboard-ka markuu ku keeno kaliya waxa sameynaysaa meeshan ay ku qoran tahay get started ayaa ku dhifanaysaa dabcan get started marka ku dhifato wuxuu ku soo saari doonaa insha Allah yani features-kan kala duwan oo dabcan basic iyo plus iyo just plus iyo online store la kala dhaho hadaba marka aad waxa ka dooranaysaa qaybtan ay ku qoran tahay basic maadaama aad u baahan tahay hosting iyo domain aad maamusho oo aad xorriyad u leedahay cidna aysan kula wadaagin waa inaad qaybtan markaas yani aad ku dhifataa oo 2.95 bishii ay tahay waa qiimo aad iyo aad u balaaran dabcan saad inta u jeedo 70% discount ayna la siiyay hadaba marka waxa sameynaysaa meeshan ay ku qoran tahay select ayaa ku dhifanaysaa marka aan soo raacnay linkigeeni yani qaybteeni basic ahead inta ayuuna keenay hadaba marka meeshan waxa u baahan tahay markaas inaa yani domain-kaaga aad geliso dabcan macaamilku wuxuu naga soo codsaday in magacaan inta ku qoran aan u gelino cadale kabacdina number 1 aan u raacino dabcan si aan u qorno sida capital ayaan ka dhigaynaa kadibna kale double D L E cadale 1 dabcan saa u jeedo meeshan waxa ku qoray cadale1.com
dabcan haddii uu available yahay iyo haddii la qaatay isaga noo kala sheegi doono insha Allah magacan sida u jeedo waa available oo markaas waa mid la isticmaali karo insha Allah marka waxaan guda galaynaa sida aan ku iibsan lahayn ama markaas yani xogtan ayaan buuxin doonaa insha Allah xogtan ayaan buuxin doonaa dabcan sida hadda u jeedo waxa waaye $119.04 insha Allah meeshan waxayna keeni doonaa qiimo aad iyo aad u raqiisan markaas yani ku heli doontaa insha Allah waxaan dhan waa bedeli doonaa haddaba marka si aan u sameeyno waxaan dhan waxaan sameynaynaa number 1 meeshan waxaan gelinaynaa magaca customer-ka ay gelinaynaa meesha insha Allah waxa ka dooran doontaa wadanka adiga aad joogto dabcan anaga meesha waxaan ka dooranaynaa insha Allah Soomaaliya ayaan ka dooranaynaa maadaama Soomaaliya aan joogno dabcan qofka markaas loo sameeyay ay ku xirantaa wadanka uu joogo ayaa loogu doorayaa insha Allah dabcan Soomaaliya dabcan Soomaaliya ayaan dooranay markaan dooranay meesha address ayaan gelin doonaa insha Allah addresska markaas yani qofku uu degan yahay aad gelin doontaa insha Allah kadib inta waxa ku qori doontaa insha Allah caasimada markaas aad joogto ama wadanka aad joogto caasimadiisa wadanka inta aad soo gelisay yani haddii Soomaaliya soo gelisay haddii Kenya soo gelisay haddii wadanka kale aad soo gelisay wadanka inta aad soo gelisay caasimadiisa ayaan ku qori doontaa insha Allah dabcan inta markaa ku qorto waxa sameynaysaa meeshaan basal code ku qoranta waxa gelinaysaa 00252 طبعا meeshaan nan ku qoran waa sideeda ku deynaysaa sidoo kale meeshaan waxa gelinaysaa 00252 dabcan meesha waxa gelinaysaa phone number-ka ayaa gelinaysaa waxa hadda Muqdisho joogto waxa ka bilaabaysaa 6 xal dabcan hadii gobol aad joogto markaas yani sida yani Boosaaso kale ama meelaas aad joogto waxa sameynaysaa yani number-kaaga meesha uu ka bilaabana ayaa gelinaysaa dabcan number-ka waa soo gelinaysaa ujeedo meeshaan waa meesha ugu muhiimsan dabcan meesha hadaa qalado waa uu ku deeyay domain-kaaga fadlan email address-ka inta aad saarayso iska hubi si aadan u qaldin waxa samaysaa kaliya taab cusub soo furo kadibna meeshaan taabo hal mar koobi soo dheh waxba ha qorin meesha uu ku yani markaas uu ku jiro gmail-kaaga kaliya koobi soo dheh kadibna inta ku soo laabo paste ku dheh dabcan si aadan wax iskaga qaldin inta markaas sameeyso meeshaan waa in 12 bilood ay ku doornaataa waxa waaye meeshaan 3 sano iyo waxa ku jira 1 sano dabcan waa in 12 bilood aad doorataa oo aan ku soo helnay 2.9 discount ah هذا مركا يعني soo doorato 12 kaas bilood yani kuwan qiimaha ay ku badanayaan waa ina markaas yani tigta aska qaada dhamaantood dabcan waa ina office ka qaada kulligood hadaba marka tigta ka wada qaado dabcan meesha insha Allah sida ay noqon doonto totalka $119.04 ay ahayd hadda yani insha Allah sida ay noqon doonto waan isla eeginaa dabcan qiimo aad iyo aad u ballaaran ay noqotay oo yani waxa naga reebay 96 ay naga reebay dabcan waxaan ku qaadanaynaa 35.40 هذا مركز إن شاء الله هدي أترتو وحنا يعني قيمة دمستان بلارن وحتصور راعي دونتا إن شاء الله لينك description كان صارن مقال على مقال كداونس description كأنت إيجي دونتا كدينا إن شاء الله مش عياك صور راعي دونتا كدينا بروسيس كأني عن سومري أي سومري دونتا هذا واحد أصله سو جارني قيبتي بيمنتيجا أو يعني مركز كار نمبر كسودو كله إن كار ديت كيسي بحالات إن شاء الله عاديا بوالا قرية يعني قيبتي بيمنتيجا إن شاء الله مركز بيمنتيجا أنا إنجليو كدب أي مقال ينسف صحيح دونا هذا marka arday badan waxa jirto naga baratay course-ka blogger-ka markaas yani soo loo sameeyay maadaama si free aan ku soo gelinay hadii aad baratay blogger-ka aad u baahan tahay inaad domain aad iibsato iyo hosting markaas yani tayo leh oo markaas quality leh kaliya link-aan soo raac inta marka imaadona hadii aadan haysan kaar inaga ku caawin doona insha Allah kaliya waxa la baxdaa $35 afartanka senti yani kaarka intuu goosana inaga ayaa ka dabiri doona insha Allah $35 kaliya la bax insha Allah la soo xir inaga ayaa ku gudi doona ku xiri doona 10 kun oo page views ah iyo 15 article inaga ayaa ku soo doona insha Allah hadii aad doonayso inaad ka faa'iideysato welcome hadaba insha Allah waxaan buuxin doonaa qaybtan payment-iga dabcan hadda sida u jeedo kaarkii waan soo galiyay marka waxa aan sameeynaa waxay tahay kaliya waxaan leeyahay submit طبعا congratulations sida u jeedo wuxuu na success yani one iibsanay domain-keeni yani markuu wuxuu sameeyaa email-ka ayuu wuxuu noogu diri doonaa fariin insha Allah dabcan si aan isku soo furno email-keena ama gmail-keena soo marka sida halkan ugu jeedo yani sidaan ayaan markaas aan ku sameysanay ama aan ku gadanay hosting iyo domain quality lah oo qofku markaas
isaga yacni xorriyadiis oo haysto qofna aysan la wadaagin dabcan sida inta ugu jeedo waa $35.40 baraaska guud insha Allah qof walba oo rabo in yacni markaas wax tayo leh oo qurux badan hela hanala soo xiriir insha Allah inaga caawin doona dabcan sida yacni halka ugu jeedo waa inoo soo dhacdo bashqada soo marka meeshaan ay ku qoran tahay verify your email ayaan taaban doonaa insha Allah dabcan sida hadda ugu jeedo waxaan sameynay verification email hadda marka waxaan u baahanahay inaan password aan sameysano kadibna markaas yacni password cusub markaan sameysano aan ku xirano bloggerkeena si markaas aan password cusub u sameysano waxaan u baahanahay inaan qaaradan iska xirno sidoo kale midaan verificationka iska xirno sidoo kale midaan idane aan iska xirno mar labaad aan ku soo laabano YouTube-ka kadibna linkiga aan soo raacno linkiga markaan soo raacno kadibna inta aan ka login garayno haddaba marka meeshaan ee login ku qoranta ayaa taaban doontaa login meesha ku qoranta markaa taabato kadibna wuxuu ku soo saari doonaa domainkaaga dabcan sida halkaan aad ugu jeedo inta ayaa waxaa geli doontaa insha Allah domainkaaga iyo passwordkaaga maadaama password aan domainka ayaan geli doonaa kadibna waxaan dhihi doonaa forget password طبعا انت markaa geliso waxaa leedahay forget password kadibna waxaan sameyn doonaa insha Allah emailka ayuu wuxuu kuugu diri doonaa fariin oo taas ah yacni reset password hadu wuxuuna dhahay yacni waxaa gelisaa inta domainkaaga inta geli طبعا هاد سأوجد وحورة يعني وانقدرني إيميل كذا سؤال طبعا إيميل كان أنتيجي دونا كده من مركز جيميل كان كسي دورة دونا كبعد فرينت أو ينوس هدري أي مركز باسور حسب كسارة دونا طبعا سأدا أوجد وحورة الريسيت باسور سو مركز أنت أيام باسور كقرض دونا إن شاء الله باسور كأقرن ناس مهمة وإنه يهي تصال النمبرز iyo magac iyo xarfo iswata dabcan sida qofkan hadda aad u jeedo waxaan u sameeyay password markaas isaga u gaar ah oo markaas yacni excellent oo kii ugu adkaa ah haddaba intaa markaas sameys waxaa leedahay I have read and agree leedahay kadibna waxaa leedahay next dabcan sida aad u jeedo passwordkii waan u sameeyay password isaga qaas u ah intana usernamekii iyo passwordkii ku jira dabcan insha Allah safe ayaan u dhigi doonaa haddaba marka sidaa waxaa ku samaysatay yacni username iyo password iyo yacni domainkaagii markaas loginkiisa adi ah haysato cidna aysan markaas kula ogeyn xilligaa doontana aad log out dhigi karto xilligaa doontana aad log in dhigi karto dabcan hadda waxaan tegi doonaa insha Allah homeka markaas domainka aan gadana dabcan waxaan leenahay go to login dabcan hadda sidaa u jeedo waa soo login gareynay oo markaas yacni domainkeeni passwordkiina ayaan ku soo galnay oo kadibna waxaad sameynaysaa meeshaan ay ku qoran tahay domains ayaa tegaysaa si markaas aad ugu xirto bloggerkaaga kadibna waxaa kasii dooran doontaa insha Allah meesha ay ku qoran tahay my domain kadib markaa inta imaado waxaan sameyn doontaa insha Allah meesha ay ku qoran tahay manage ayaa taaban doontaa kadib meesha ay manage ku qoran tahay markaad taabato waxaad sii taaban doontaa insha Allah meeshaan ay ku qoran tahay DNS meesha ay ku qoran tahay ayaa taaban doontaa insha Allah DNS meesha ay ku qoran tahay markaad taabato waxaad sameynaysaa qaybta ay ku qoran tahay CNAME ayaa tegaysaa dabcan CNAME waxaa ku jiro 40 xabo ayaa kaaga jirto haddaba marka waxaad sameynaysaa 40 xabo ayaa removeysaa dabcan waxaa leedahay remove confirm remove dabcan CNAME ka hadda sida u jeedo waan ka wada removenay marka waxaan sameeynaa waxaan ku laaban doonaa insha Allah bloggerkan ayaan ku laabanaynaa bloggerkan markaan ku laabano waxaan tagi doonaa insha Allah setting ayaa tagaynaa setting markaa tagno insha Allah waxaan tagi doonaa qaybta ay ku qoran tahay custom domain
dabcan qaybtan ayaan tiri doonaa insha Allah custom domain kadibna inta waxa geli doonaa www 3w marka geliso dot aad dhahaysaa kadibna waxa gelinaysaa domainkaaga inta markaas sameeyso kadibna waxa leedahay save marka dhado programka ay ku siinaya kadibna waxa qaadi doonta insha Allah number 1 waxa sameeyay doonta waxa qaadi doonta www ayaa qaadi doonta kadibna waxa ku soo laaban doonta yani meesha ay ku qoran tahay cname marka amaad kadibna waxa leedahay add record ayaa leedahay kadibna waxa ku baas garan doonta inta kabacdi hadan waxa soo qaadi doonta yani meeshan ay ku qoran tahay qaybtan ku xogto destinationka GHS ayaa soo qaadi doonta ilaa iyo markaas .com kadibna waxaad ku soo laaban doontaa meeshii yani aad ka gadato domainka kadibna inta ay ku baas garan doonta kadibna waxa dhigi doonta save dabcan wuu save garasme hadaba secondly wana sameynayso waxay tadana meeshan ay ku qoran tahay cname ayaa hadana waxa leedahay add record marka dhad waxa ku soo laabanaysaa blogerkaaga kadib hadana intaan ayaa qaadaysaa r meesha ka bilaabanayso ilaa iyo f ayaa geynaysaa calaamad yar oo comma iska ilaalin inay ka raacdo kadibna waxa ku soo laabanaysaa inta qaybtan kor ayaa waxa ku leedahay bast kadib hadana waxa ku soo laabanaysaa blogerkaaga qaybtan destinationka dheer ayaa qaadanaysaa gv ee ka bilaabanaysa ilaa iyo .com ayaa qaadaysaa kadibna waxa leedahay copy kadib waxa ku soo laabanaysaa qaybta domainkaaga kabacdina meeshan banaan ayaa ku baas garanaysaa sidana waxa ku leedahay save hadaba dabcan marka sida u jeedo waxaan isku xirnay blogerkeena iyo hostingkeena dabcan hosting waa shay muhiim ah oo markaas in website-kaaga hosting uu leeyahay dhalinyaro badan waxa arkay dadka dhahayo hosting free ah oo blogerka leeyahay maxaa hosting lacag uu bixinaysaa saan maxay tahay hadaba qofkaas yani wuxuu daneynayaa lacagta si uu ka qaadanaya hadaba markaad waxa ku wanaagsan wax mustaqbal leh future leh ee ku wanaagsan inaad sameysato oo hal mar aad qarash geliso wax mar walbo wax u celinayso ma wanaagsan hadaba marka si aad u sameysato waxa u baahan tahay kaliya inta imo linkigan aan ku soo dhigay 73% ka faa'iideyso kadibna halka ka gado ama anaga lacagta noo soo dirso inaga ayaa ku gudi doona ku sameyn doona wax walba ku hagaajin doona insha Allah hadaba marka inta marka sameeyno kaliya 3 daqiiqo ama 2 daqiiqo ay sugaysaa kadibna waxa ku soo laabanaysaa blogerkaaga kadibna waxa leedahay save dabcan wali 3 daqiiqo lama gaarin oo kolnad ay dhawaa marka adiga kama daaliso iska celinaysaa 2 daqiiqo kadib 3 daqiiqo kadib waad ku celin doontaa insha Allah ilaa uu ka yeelo because yani laba website ayaa isku xiraysaa Soomaan yani waa yar cuslaanaya marka dabcan hadda sida u jeedo 3 daqiiqo kadib waan save gareynay oo halkaan sa u jeedo waa www.cadale1.com hadaba waxa u baahan tahay kaliya inaan furto qaybtan redirect ee ku qoran tahay kadibna aan sii furto https dabcan inta marka sida u furto kaliya waxa tagaysaa meesha view blog ee hadda sa u jeedo waxa waaye cadale.blogspot.com meesha inay baxdo oo waxa la rabaa cadale1.com kaliya inay noqoto hadaba markii waxa sugaysaa 30 daqiiqo si website-ka markaas hawada loo soo saaro dabcan hadii aad refresh gareeyo hawada kuma jiro oo hadda aan isku xiray waa in 30 daqiiqo 40 daqiiqo ilaa 1 saac sugtaa kadib markaas yani waa in domainkaaga ama magacaaga website-kaaga available oo soo noqda oo Google ka soo muuqda dabcan hadda waa refresh gareeyay .blogspot way baxday cadale1.com ay noqotay laakiin waa inaan 30 daqiiqo sugnaa insha Allah marka muuqaalada kale ayaan ku soo dhex diri doonaa website-ka marka aan sameeyo Telegram group waan soo dhigi doonaa insha Allah waad arki doontaan waad soo booqan doontaan marka waxaan iga leeyahay dambeyn waxaan idin leeyahay tan iyo muuqaalka xiga sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh